ومعتنتهاي إن عكت حاجي إن خطبة حماسة دل وجدية أم بوجدينية مدحوينه قراء صوماليا دولة تي دكتور عبد القاسم صلاة حسن ayaa waxa ay ku qotontaa cagta xaajiyo isla markaana asagoo in qodbadan haatan ugu talagalay shirkii jamhuuriyadda Djibouti dhawaantan ku dhaxmaray dawladda federaalka ku meel gaarka iyo isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya in kuwaas oo ay kala hogaaminayeen Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo halkaasina waliba shirkaasi uu kaga hadlay khudbadii uu ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya heshiiskaasi ku saabsan inta badan ay ku qotontaa in khudbadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan cagta la socotay in Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa inta badan uu yimaaday magaalada Qaahira waqti aad u fara badan asagoo wali halkaan deganaa inta uusan madaxweynihii ka naqan dalka Soomaaliya aan lagu dooran shirkii jamhuuriyadda Djibouti inta badan waxaan daawan doonaa in cagta xajuu dadweynaha aad u fara badan oo arkaysid in ay halkaan ay ka soo qayb galeen isla markaana si ay u dhageystaan khudbada xamaasadda leh oo ujeedinaya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan sidoo kale dadka ayaa inta badan waxa ay shaki ahaan ka muujinayaan qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbaha ka yimid qaarna ay degan yihiin magaalada Qaahira shirkaasi ka dhacay jamhuuriyadda Djibouti si ay tafaasiil aad u fara badan halkaas bal ugu ogaadaan sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay in muddo 19 sano wadanka Soomaaliya ku sugnaa dhibaatooyin baaxad weyn wuxuuna ka dhawaajiyay in marxaladda maanta Soomaaliya ay marayso in aysan lahayn mucaaradi muxaafid waxayna taagan tahay god qarkii waxaa sidoo kale Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan uu ka dhawaajiyay in calanka loo soo halgamay uu ciidda maanta afka daro 10 sano fooda la gashay haatan ayaa dalka Soomaaliya ku sugnaa dhibaatooyin baaxad weyn leh oo qaarna asalkoodu ka imaanayay marxaladda maanta ummadda Soomaaliyeed marayso ma taagna mu'ayid iyo mucaarib waa soo dhaaftay waxay taagan tahay god qarkiis ayay ummaddu maanta taagan tahay waxay taagan tahay calankaas quruxda badan ee aabayaasheen u soo halgameen inuu maanta ciidda ku dhaco oo ninkii soo gaaraaba ay gacmo badan u doonayaan cadcad inay u goostaan haddaba waa ka ballaaran tahay arrin kursi ka kacsi iyo kursi ku fadhiisi ah shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta miisaanka saaran dhanka kale Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa kale oo sheegay in xamar oo kaliya ay ku nafwaayeen ilaa 7,000 oo muwaadiniin Soomaali ah isla markaana ay ku dhaawacmeen 25,000 inta u dhaxaysay sanadii 2006 iyo 2008 waxaana sheegay in barakaca dadka Soomaaliyeed uu gaarayo malaayiin Soomaali ah kuwaas oo ka barakacay caasimadii weyneed ee Muqdisho xadgudubyada iyo xasuuqa loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed oo isugu jira dil aan loo aaba yeelin cidda loo geysanayo ama si toos ah ama sabaayado oo ay haleelayaan madaafiicda iyo hooyayaasha lagu ridayay xaafadaha la degan yahay ee magaalooyinka ayna ku nafwaayeen dad rayid ah oo lagu qiyaasay in ka badan 7,000 oo qof xamar kaliya ayna ku dhaawacmeen dad ka badan 25,000 oo qof muddadii u dhaxaysay 2006 iyo 2008 la soo dhaafay barakaca hadda malaayiinta gaaray ee shacbiga Soomaaliyeed burburka guud ahaan dalkii oo dhan Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu amaanay shacbiga Masaarida oo ku tilmaamay in ay yihiin in Afrika calankeeda dadkii siday ugu horeeyeen shacbiga Masaarida wuxuuna tilmaamay in wadanka Soomaaliya iyo shacbiga Masaarida in ay yihiin kuwa walaala wuxuuna tilmaamay in xurnimada maanta Afrika ay haysato ay kaalin weyn ka soo qaadatay dawladda Masaarida iyadoo shacbiga Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Masaarida ay arintaasi si aad ah u soo dhaweeyeen iyagoo sacab ku soo dhaweeyay khudbadii Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan siyaasiyan iyo dad ahaan dalka ugu weyn weligina calan sidaha u ahaa calanka العالم العربي مصر ayaa weligeed siday wax Afrika laftigeeda calankeeda Masar iyada inta siday ugu horeysay wax Afrikana marka la yiraahdo inta calankeeda siday ugu horeysay oo xorriyadda Afrika iyo dawladaha xoroobay intii ka qayb qaadatay sidoo kale caalamka islaami sidoo kale telefishinka caalamiga ee Universal ayaa fikrad ahaan ka weydiiyay sida uu arko shirkii dhawaantan ugu dhamaaday wadanka jamhuuriyadda Djibouti
isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya fikrad ahaan sida ay la tahay Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya shirkaasi sidii doctorku idin sheegay wuxuu ahaa ama yahayba shir weli arrimihiisu kala dhimayay sidii aan idin sheegahayeyna waxaa dowladda Sacuudigu ku yabooday inay shir bisha soo socota dhammaadkeeda ku qabanayso dalkeeda laguna dhammaystiri doono wax kasta oo mugdi shirkii hore geliyey arrintaas sidaas markay u dhacdo waxaan rajaynayaa wax ummadda Soomaaliyeed u cuntama oo shayga ugu horeeya yahay ciidamada Tigreed inay ka baxaan dalka dabadeedna nabad la helo ummaduna ay guryaheeda ku soo noqoto in shirkaas dambe uu horseedi doono iyadoo jamciyadan Afriqiga hore ugu qodbeen madaxweynaha hore ee dalka South Africa Nelson Mandela isla markaana uu qodbad hore ugu jeediyay madaxweynaha imika talada wadanka haya ee Uganda Yoweri Museveni iyadoo haatan ka horna uu qodbad xamaasad la halkan ka jeediyay gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo imika halkan qodbada xamaasad uu ka jeediyay Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mahad Carab oo Ali telefishinka Universal Al Qahira